xarunta xalane waa xarun hore u ahayd xero lagu tababari jiray ciidamada Soomaaliya haddase waa dal yar oo ka dhex samaysmay gudaha Muqdisho waxaana ku nool quruumo aan la ogeyn halka ay ka soo jeedaan iyo danaha ay dalkani ka leeyihiin xalane waa dawlad kale oo ka dhex samaysan ummadda Soomaaliya dhexdeeda ka samaysan waagaas uu sheegayo in warqadii waxa qoray Prime Minister-ka wuxuu la weydiiyay in taliya ciidanka Amazon markaas joogay inuu noo soo gudbiyo dhammaan hay'adaha private army-ga hay'adaha ammaanka oo ah private-ka oo xalan dhex joogo waa ka leexleexdeen laakiin aakhirka waa noo soo diray waagaas waxa deganaa 28 company xalan dhexdooda deganaa oo adduunyada afarteeda dacwad ka kala yimid marka waaga anaga ujeedana wax kale ma ahayn in horta inaan ogaano yaa jooga inta ta kale yaa u shaqaala ah oo lagu qasbo markaas in shaqaale Soomaali hayr gareeyaan shaqaalahoodana laga qaado canshuur laga qaado waxa albaabada laga galo xaruntan ilaaliya ciidamada Amazon balse gudaha waxa ka dhex shaqeeya in ka badan 29 shirkadood oo dhanka ammaanka qaabilsan shirkad walbana waxa uu shaqeeya ciidamo calooshooda shaqaystayaal ah oo caalamka ka soo xamaal tagay intooda badanna waa ciidamo ka soo dagaalamay Iraq iyo Afghanistan wali ma jirto cid xaqiijin karta tirada dadka ku nool xalane iyo hawsha ay ka dhex qabtaan waxaase xaqiiqa inay ku nool yihiin sirdoon aad u badan oo ka kala yimid caalamka qayb libaax lana ka qaata deganaansho la'aanta dalkeena ka jirta container la isdul saaray waa dhismaha ugu badan ee xaruntani ka dhisan waxayna hooy u tahay ajaanib badan anigan idinla hadlaya iyo adigan idaawanaya madaxdii dalkani soo maamushay iyo kuwa hadda maamulaba xogta aynu ka hayno xaruntan waa mid isku mid ah ma jirto cid ka warqabta tirada dadka ee ku nool tirada ciidamada calooshooda shaqaystayaasha ee xaruntani jooga iyo dawladaha xarumaha ku leh xalane iyo hawlaha ay ka dhex qabtaan xarunta xalane waa dawlad gaar ah oo iskeed isku maamusha dadka reer Muqdisho ee ka agdhow xaruntaasi waxay mar walba is weydiiyaan diyaaradaha habeenkii dulmara waxay sidaan iyo cidda aysan ogeyn ee ku nool xalane waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah in dhammaan shaqaalaha ka shaqeeya xaruntan ay yihiin ajaanib xitaa kabalyeerigu waa Indiyaan ama waa Afrikadan kale aad bay u yar yihiin dadka Soomaaliyeed ee ka shaqeeya xaruntan mid ka mid ah saraakiisha ammaanka oo lagu magacaabo Saciid Axmed oo aan qadka fiberka kula sheekaystay intii aan ku guda jiray baaritaankani kooban wuxuu ii sheegay hadal maskaxdeeda ka go'i waayay oo ahaa duul inoo soo qaraabtagay baa ku nool wuxuu sarkaalkani intaa iigu daray in sanadkii 2016 uu maalin tagay garoonka Adencadda oo xaruntani ku dhex taalo waxyaabaha la yaab kale oo kala kulmanay ahayd in isagoo sarkaal dhanka ammaanka ah waqti badan sugay qaabkii xaruntaasi u gali lahaa iyadoo ay ku qaadatay maalmo wuxuu ii sheegay inuu aad uga xanaaqay qaabka loo faquuqay isagoo dhex jooga dalkiisa waxyaabaha uu idhiisu ku soo arkay waxa ka mid ah goobo tomasho iyo qamri cabida oo ay habeenkii ajaanibtu ku kulanto Chelsea waa xaafad gaar ah oo ku dhex taal xerada xalane waxa ku nool xaafadani ajaanib badan iska daa inuu qof shacab galay madaxda dalkeena ugu sareysa awood uma laha inay galaan xaafadani Chelsea Village. Welcome to Chelsea Village. Welcome to Chelsea Village. Welcome to Chelsea Village, Mogadishu, Somalia. dawladdu hogaamiye Farmaajo ayaa dhowr mar sheegtay inay tirikoob ku sameyn doonto shaqaalaha xaruntani ka shaqeeya walise lagama howlgelin intaasi waxaa sii dheer shirkadaha ka dhex shaqeeya xaafadda Chelsea iyo xalane waa kuwa aanan wax canshuura bixin muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Axmed Village waa ganacsadaha Soomaaliyeed ee qura ee xaruntani maqaayad ku leh wuxuu aad uga cabanayaa ajaanibta xalana ku sugan oo uga heelinaya maqaayado ay leeyihiin South African iyo Talyaani wuxuu halkani baaq uga dirayaa dawladda Soomaaliyeed waddanka business aan meelka adduunka kale ka samaysan waayay Ingiriiska ku lahaa haddana markii aan UNT dhexdeeda aan imid oo aan rabay inaan tuso culture-kii cuntadayadii iyo maaragtay isha bulsho ahaan Soomaali ahaan ay maqaayado ajnabi ah oo South African Talyaani ah ay competition isku dayay inay businesskayga xiraan isku dayay awood inay isticmaalaan siyaasadeed oo la yiraahdo amni xumo ah
masiibooyinkii wixii hore igu dhacayna aysan cidina wax iga geysan oo gacanna aysan iga siin layguna taageerin maantana waxaan u baahanahay haddii dowladda jirto Soomaaliyeed in arrimahaas wax lagala qabto. waxaa sidoo kale xaruntan ka howlgala shirkado iibiya xubnaha jirka bini'aadamka iyo suuqgeynta carruurta aadka u yar waxayna adeegsadaan badanaa dad Soomaaliyeed oo u soo qafaala carruurta yar. tani waa gabar lagu qabtay iyadoo xadaysa wiil aad u yara waxay sheegtay in hawshani gabar ku xirtay waxay intaa ku dartay in qafaalidda ilmaha yar ay u qaabilsan tahay shirkad ka howlgasha Xalane. ما هي أنا وش غيان يسوي طيب ما هسيك عظم يا طيب يا أخي أي كوس على السلام ما قشان يا waxyaabaha xusida mudan waxaa ka mid ah in faralka amni darro ee magaalada Muqdisho ka dhaca qayb libaax leh ka geystaan sirdoona dalal shisheeye oo xaruntani degan waana goob laga hago siyaasadda dalka iyo hagardaamooyinka lugaha looga qabanayo horumarka iyo horusocodka dalkeena. ugu dambeyntii bal aan wax yar idinkaga taariikheeyo Maxamed Cabdulle Xalane oo ahaa qofkii xaruntaasi loogu magac daray. Maxamed Cabdulle Xalane wuxuu ahaa nin askari alifla ah oo ay maxaaradu ku dishay dagaalkii Togo Jaale ee dhacay sanadkii 1964. Xalane wuxuu ka mid ahaa koox ay cadowga is hor fadhiyeen oo go'doon noqday kaliya 3 askari oo isagu ka mid yahay ayaa halkaa ku haray. meesha kooxdaasi cadawga joogtay oo ay go'doonka ku noqdeen waxay ahayd halkii calanka Soomaaliyeed oo ku mudnaa. haddaba markii la baabi'iyay oo ay ogaadeen inaysan meesha hayn karin ilaa ay colkoodii weyna ku durkaan ayuu Xalane wuxuu diiday calankii inuu meesha kaga tago. markaasi ayuu qaatay calankii oo xarigiisii soo degsaday si uu la tago uusan gacan cadow ugu dhicin calankaasi sharafta leh. midar baan hore u galay niyadaydu waa meel haddii aanan soo noqon calankayga nuuro Maxamed Cabdulle Xalane waxaa arkay cadowgii waxayna ku dhufteen qoriga loo yaqaano beebaha kadib wuxuu soo gurgurtaba naftii waxay kaga baxday kadib markii calankii ku soo riday gudkii labaad. yaa salaam geesi Soomaaliyeed. dhulkii loo soo maray dhibaatadaasi waa nasiib darro in maanta gacan shisheeye ku jiro oo xitaa carabtii maanta fargelin inagu hayso. Xalane wuxuu ahaa 22 jir markii uu dalkani u shahiiday. bal ka warrama 22 jirka Soomaaliga ee waqtigani nool waxay dhalinteena ku mashquuleen badankood drugs iyo kooxibal baabadisay waxaynu ilownay waajibkii dalkan in naga saarnaa. gunaanadkii waxaan idinka codsanayaa inaad qaybisaan barnaamijkan waliba si gaar ah waxaan rabaa inay fariinteeda u gaarto dhalinta Soomaaliyeed sababtoo ah waa iyaga kuwa dalkani difaac ka sugayo oo waa iyaga kuwa laga sugayo in dalkani ka xoreeyaan cadowgani ku soo duulay. waa saaxiibkeen Cabdirasaaq Gumaysi Diidoo dalka